السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا وادن سلامي. سلام كتب مقعيق وعبدي. وحنا behavior teacher كشقي سكول كلاس ديدا سقالات طبنات. waxaan rabnaa inaan bilowno barnaamij la yiraahdo baro oo ku barbaari barnaamijkan la yiraahdo macnihiisu waxaa waaye in waalidiinta Soomaaliyeed wadankan qurbaha jooga gaar ahaan wadanka Norway inay bartaan barbaarinta sida loo barbaariyo carruurta si ay u barbaariyaan carruurtooda. waxaa laga yaabaa in la is yiraahdo filmaana loo bari barbaarinta carruurta, laakiin dee barbaarintii wadankan aan ku naqinay iyo barbaarinta wadankan reer galbeedkan hadda joogno aad ay u kala duwan tahay. saa daraadeed marka waxaan u go'aansanay inaan bilowno barnaamij taxane ah oo ku saabsan sida ilmaha loo barbaariyo carruurta, gaar ahaan markaan joogno wadamadan qurbaha. barnaamijkan baro oo ku barbaari kali kuma koobna in laga hadlo barbaarinta carruurta, laakiin waxaan ku saabsanaan doonaa systemka iskuulada wadankan, wada shaqeynta waalidiinta iyo iskuulka, waxa iskuulku ka filayo waalidiinta waxa ay ka filayaan iskuulka waxa uu ka filayo ardayga iyo ardayga waxa uu ka filayo iskuulka, meelaha xanaanada carruurta waxa ay ka filayaan iyo qaabkii loo wada shaqeeyo. barbaarinta marka carruurtu meel kaliya kuma koobno, wax alla wixii saameyn ku leh carruurta oo dhan waa barbaarinta carruurta waaye. waxaa laga yaabaa barbaarinta carruurta inaan u fahamno inuu ilmaha dee cunto iyo dhar iyo jiif la siiyo, laakiin barbaarinta intaas way ka ballaaran tahay. wax alla wixii carruurta lug ku leh ama barashadooda ha noqoto, caafimaadkooda ha noqoto, korinta maskixiyan iyo jir ahaanba ha noqoto, intaasoo dhanba waa barbaarinta carruurta. barnaamijkan marka wuxuu ku saabsan yahay saan sheegnay barbaarinta ubadka carruurta. saan sheegnay marka ubadku waa mustaqbalka ummadda, waa hoggaankii berito, waa dhakhtarkii berri, waa macallinkii berri. marka cunuga marka intaas mustaqbalkii noqon raba intaa wuxuu u baahan yahay marka in barbaarintiisa ay noqoto mid 100% ah. barbaarintu sideedaba waa dhisida mustaqbalka ummadda. ummadda marka la rabo in la fiiriyo iyo mustaqbalkeeda iyo higsigeeda waxaa la fiiriyaa ubadkooda la fiiriyaa. haddii marka carruurta ay yihiin carruur mustaqbal leh oo barbaarintoodu aad u dhisan tahay, bulshadaas waxaa lagu tilmaamay inay mustaqbal iyo horumar leeyihiin. haddaba marka si loo gaaro mustaqbalka horumar iyo barwaaqo, waxaa laga maarmaan ah marka in fikir iyo dadaal dheeraad ah lagu bixiyo barbaarinta carruurta. arrintaas marka si loo gaaro waxaa loo baahan yahay in waalidiinta la siiyo tilmaan ama furihii ay maaragtay ay ku furfuran lahaayeen fahamka barbaarinta carruurta. normally marka laga hadlayo marka dhisida carruurta, barbaarinta waxaa la yiraahdaa waa bad aan berri lahayn. taa macnaheedu waxaa waa barbaarinta carruurtu wax xadidan maaha. marka laga bilaabo cunuga inuu 2 sano jiro ama 1 sano ilaa 18 sano. runtii barbaarinta 18 sano kuma eka, laakiin waxay ku egtay ilaa cunugu ka gaaro 23 sano ilaa meelahaas uu gacantaada ka baxo. marka waxaan u baahanahay marka waalidiinta Soomaaliyeed hadii jeer waxaan aragnaa iyada oo isku dhac fara badan oo ka yimaada systemka wadankan aan deganahay waalidiintii. systemkan oo mar walba uu leeyahay waalidiintii baa khaladaad sameynaya saasi ku weynayaan carruurtii. waalidiintina ay leeyihiin badbaadada carruurta lagu soo xadgudbaysa. si marka looga saaro isfaham la'aantaas iyo
meesha looga saaro looguna bedelo wada shaqayn iyo isfahan wanaagsan. waxaa la rabaa anaga waalidiin haddaan nahayna inaan anagana khaladka naga qaadano oo meelaha aan ka lacibsannahay ama nalaga soo galaya inaan marka horeba iska adkayno. runtii marka laga hadlayo barbaarinta carruurta waddankan kulli waxay ku qoran yihiin Norwegian ku qoran yihiin. waxaan isku daynay marka inaan soo minguurino oo barnaamijyadii barbaarinta carruurta ku qornaa inaan af Soomaali u bedelno. dabcan ma qorayno dee buugaag af Soomaali haddana kuma bedelayno, laakiin waxaan rabnaa inaan clipkan YouTube-ka inaan kaga faa'iideysano oo barnaamijkaas maalin walba aan soo qaadano topic aan kaga hadalno markaas. marka waxaan codsanaynaa insha Allah waalidiintu inay la socdaan clipyadan. ujeedo kale lagama laha. ujeedadiisuna waxay tahay sida maanta ummadda Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed meeshaan degan ubadkooda aan u badbaadin lahayn. haddii ay khaladaad dhanka naga jiraan khaladaadka loo sixi lahaa. annaga iyo qolyahan badbaadada carruurta iyo waalidiinta Soomaaliyeed isfahan iyo loo dhigi lahaa oo isfahan la-aanka loogu bedelo isfahan loogu bedelo. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad barnaamijyadan kaliibadan ani kaliya ma soo duubi doono, waxaa soo duubi doono dad fara badan oo khibrad u leh barbaarinta carruurta, ama macallimiin ha noqoto ama dad soo baray barbaarinta carruurta kaliya ha noqoto. dad badan baa barnaamijyadan soo duubi doona. wuxuu yeelan doonaa interview yeelan doonaa runtii interviewgaas oo laga qaadi doono ama wareysi laga qaadi doono waalidiinta Soomaalida waddanka degan siday u arkaan caqabadaha haysta sida loogu gudbi karo. barnaamijku marka waa wax uun hal qof kaliya inuu soo jeedo ma ahan, laakiin wax la rabo yacni in bulshada loo furo baahideeda maaragtay baaritaan lagu sameeyo. caqabadaha si loogu gudbi lahaana dee ummadda Soomaaliyeed dabcan iyo dadka cilmiga u leh ama ehelku ah barbaarinta carruurta inay waxay caawin karaan caawiyaan. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka wada soconno page-kan waxaa la yiraahdaa baro oo ku barbaari in weekiiba dee waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan mar ama laba soo dhigno ama sidii waqti loo helo waddankan soo waqtigu iska yaryahay. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la soconno barnaamijkan baro oo ku barbaari. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad la socon doontaan ana qaybin doontaan insha Allah si waalidiinta Soomaaliyeed kale uu u gaaro fariinta fariintan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.